waan idin mahad celinaya sida weyn aad noo soo dhaweyseen haddii ilaahay yiraahdo wixii aan aragnay dhahay ku aragnayna waan gudbin doonaa dawladdu way ka soo jawaabi doontaa markii ma garanaysaa wixii awoodeeda ah idinku laakiin waxaan isla idinku boorinayaa had jeer dadkan dhibaataysan oo walaalihiina oo yaani dad oo yaani barakacyaasha oo banaankan daadsan waxa weey idinkuna inaad caawisaan sida wasiirka iyo xildhibaanka ba sheegeen dhammaan madaxda dalka sidoo kale waxaan ku hadlayaa afka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wakiilna ka wasiirka ahna gudoomiyaha guddiga fatahaadda oo nagala joogo wasiir oo Cismaan oo Liwaax awal waxaan sameynay assessment soo wasiirku sheegay waa kadib waxa macnaha ma namoodeen inay baaxadda beeraha iyo xaaladda jirto inay dhabtay taasaan ay tahay laakiin riboodyada uu nala soo wadaagay barasaabka iyo gudoomiyaha iyo arrimaha bulshada dhammaan iyo riboodyada aan diyaarinaynay waa macnaha way jirtay way ka muuqatay sawirro uu noo soo direen magaalada gudaheeda laakiin beer ahaan saan uma namoodeen iyo fatahaad inay xadkan ay jirto waxaan rajaynaynaa insha Allah in aan laga soo jawaabi doono annaguna saacad kasta aan diri doono waxyaabaha rasmiga ah ee ka jiro degmada waxaan sidoo kale sida la sheegay aan baraarujinaya aad u baraarujinaya in la abaabulo magaalada gudaheeda la abaabulo dad ganacsatada joogo dad ilaahay wax siiyay baa joogo waa in loo gurmado dadkan imtixaanku ma dhamaanayo ilaa la isu gurmado سلام كدب مركو هره waxaa idin soo salaamay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo dhammaan xukuumadda idin soo salaamaysay reer baardheer oo horta iyo gudooma madeeda kale wax waay dhamaanta madaxdeena sare dhibkan idin ku dhacay dhamaan goboladan fatahaada ka dhacday wuu idin la qaybsanaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhawaan madaxda sare waa idin imaan doontaa ina ogaateen waa loo baahan yahay hadda waxaan soo aragnay dhibaatada ugu weyn aan soo aragnay waxay tahay beerihii oo ilaa iyo 160 motor in ka badan la sheegayo in maartay webiga uu qaaday oo webigiina banaanka biyaha uu keenay oo aad moodid meeshii webi labaad webi saddex inuu sameysmay dadkiina ay ka soo barakaceen dhibaatadan runtii midii aan filanaynay oo markaan xamar aan joognay aan filanaynay mid ka weyn inay meeshan ka jirto ayaan soo aragnay marka dawladdiina wixii tabara waa idin gurmanaysa wixii ma aragtay ana hadda bilow waay diyaaradii shalay la keenay aqabka ah iyo tan maanta la keenay berina mida imaanaysa marka wax waay dadkii soo barakaayo hadda dadkan ku jiro ma aragtay bacahan oo ma aragtay ebarka ah in ma aragtay baca cusub iyo teendhooyin iyo waxaas loogu bedelo wixii dhan waa la wadaa marka dambe waxaan u gudbaynaa raashinka u gudbaynaa dhibaatadana waxa waay ilaahay un baa naga bixin kara ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga bixiyo